ammaan aan dusha ka saaro maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha lafta garab runaantii baydhabo waxa ay leedahay wax aysan Muqdisho lahayn yaani horumar waxay gaartay aysan Muqdisho gaarin fiir muuqaalkan waxa magaalada dhex socda biyo aad u fara badan laakiin waxa ay leedahay meel biyo mareena kaasoo ay daadadkii iyo sidoo kale biyihii socday marayaan yaani ka waran hadii biyo mareenada aysan lahayn biyahan magaalada ay gali lahaayeen Muqdisho hadii roobkan kale ka doo waa shakil aan inuu guriyo badan burburinayo sababtoo ah malaha biyo mareeno laamiyada ayaa buuxsami doona marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto horta Ilaahay badbaadiyo laakiin hadda waxaan arkayna waa hordhac oo kaliya wax baydhabo ka dhacay wax Puntland ka daay roobka qardhiya areas ka daay yaani waxay tahay waa tusaale oo kaliya wali ma ahan wixii yaani la filayo ama waxa laga cabsi qaba maaha ilaa inta ha noogu ekeeyo dhibaatada ay wataan laakiin inaga markasta waxaan kaga baahan yahay inaan taxadarno yaani taxadar inaan muujino bini'aadan aan aqli aan leenahay karaama aan leenahay waxa aan malay karnaa wax nagu soo socda yaani waxa dhibaatada ay kugu soo socda ayaa malay karnaa waxa Soomaaliya looga cabsi qabo waxa u barbardhigi waay dawlad anaga naga awood weyn dawlado qarniyaal soo jiray ayaa u barbardhigi waay fiiri wax Hindiya ka dhacay hadda goboladan ayuu daad qaaday yaani askar lagu talagal inay badbaadiyaan dadka ayaa ayaga la leeyahay oo la raadinaya ma malay kartaa qiyaasta awoodaas ma malay kartaa dal kasta maanta wuxuu u diyaar garoobaya sidoo ugu yaraan xoogaa dadkiisa xataa u badbaadsan lahaa inaguna heer waxa maanta komentiyada ku soo qorayno war maxaa ka ogtaa waxan adiga maxaa ka ogtaa taagana war anaga aqliya Ilaahayna siiyo karaamana siiyo wax ku qiyaasi karno bil calay dunida had cirka loo kacay alla sahminaya meerayaashii kala la degaya adna maanta waxa taagan tahay roobkan soo socda maxaa ka ogtaa waxa mar kale ku sheegaya mar kale ku ogeysiinaya walaal